shanta kalmadood buu nabigu yiri ayaa iga qaadan oo ku amal fali ama si bari qof ku amal fala Abu Hurayra ayaa yiri aniga nabi Allah shanta ka qaadanay ii sheeg markaa buu nabigu ka bilaabo wuxuu yiri ittaqil maharima takun a'bada an-nas wixii ilaahay ka xarimay oo dhan ka dheerow arsaaqadu xalaal iyo xaraam bay kala leedahay wixii la xarimay ka dheerow baa nabigu yiri dadka qofka ugu cibaado fiican ee ugu caabidsan baa noqonaya rasuulku ku yiri warda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas arsaaqada inta rabbi ku qadaru ku qaybiyayna ku qanac qofkan dadka qofka ugu qanisan baa noqonaya rasuulku yiri وحبا للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما نفتادا waxa la jeceshahay dadka kala la jeclow qof muslima oo toosan baad markaa noqonayay naftaada waxa la jeceshahay dadka la jeclow muslim baad noqon wa ahsin ila jarika takun mu'mina jarkaagana wanaag u sameey buu nabigu yiri oo wanaaji oo hadal wanaagsan kula hadal oo dhaqan wanaagsan kula dhaqan qof mu'min oo iimaan la markaa noqoniye wala tukthir dhahika ba nabigu yiri qosolkana habadsan qosol badnidu qalbiga ayay dishaabu rasuulku yiri shanta dardaar nabi maxamed baasiya Abu Hurayra oo yiri kuna amal fal dadka nasiibar buu nabigu say ugu amal falaan ama qofku amal fala gaarsiibu nabigu ku yiri إلهي عز وجل هن كعبسنا إلهي هنوصل نقولنا هن توبت كأنه أو هل قدين تو أي ندكتي دينكون هل كهكذا غني هل كهكوحية إنتو والله شوي كلا قايب سدين الإسلام أقل كبنان كيسنا رجع يا مسؤولية دل ساري هواين كان مسؤولية دو أقل كدحنا دو ويان حفصة بنت سيرين رحمة الله عليها إمام دنبي ولا الله حيث قبضها إمام محمد بن سيرين شيخي تعبير الرؤيا كتابه وحو ليه تفسير الأحلام ليلة وحو عبر جل الريوينك ولا شيء ويان حفصة مركة لبات السنة بال يري مصلى دي دول اعتكافي سما صلى الله يكون دول تكتو سجادة دي لبا مرون بك كعيس لبا جر حاجة بني آدمكو أي ليه مركة قبطنا بيت الميجي قليسي هي مركة ما ركتاني أي عنت أي عون سنة ويك كعيس الليلي لبات السنة دول واحد دول فردي سجادة دي داس هذا سيحان سنة هالكا بكور سيحان يسي هذا تكون سنة هالكا بكور تكون يسي مر قرآن أخرسته يا مري تكتو لبات السنة بالليلي كما يبحن كما يدقق المسألة دوشيدا مالكينا وصومتها هبكينا قيام الليل بأتاقنتها المؤمنين جويرية رضي الله عنها أي نبي هبين هل كي صلاة الليل أي كنت كنيسة يدو كنت كنيسة أي نبي صلاة فجر بك دقاقي لأن مركب نبي مسكيت كتجي حلق برقدي بك صنق برقد وحلق وكلام جونو ويان مركز نبي قوي المؤمنين هل كي كنت كنيسة فددا markaa buu nabigu ku yiri ma halkan kaaga tagaad wali joogtaa ha halkaad xalay iga tagtay baan fadhiyaa bay ku tiri waa meeqa saac 10 saacadood ama 8 saacadood qiyaastii halka bay dul fadhideed ku cibaadeysanaysa maray quraan akhrisato iyo maray salaatu kato iyo maray ilaahay tabaaraka wa taala ay barido iyo maray dhikri samayso iyo maray istighfaar samayso markaa buu nabigu ka naxay calayhi salaatu wassalaam لأن النبي يقول نحريس بدنا مركز وكيري صدح أفر كلمات أو صدح جر أو كلية أن كعليي أي عمل كمان تودن هلك الله فرد هدي ميزان كلا لا سار لها كفض كلا ودق من الحين النبي يقول كيري سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عبادته أي كل داليان بنبي وقلنا حريسنا جي إنك أنا درميرك أيها نوقنا حريستا دريكارينتا أيها نوقنا حريستا وكاس هوين كانوا الصباح دي بقى يا المطبخة
باقي كسو بحيان بعد العشاء كسو بح maalinta dharka aad meeydaysaana waxa la moodaa aqalka hudheedin lagu dhaxdaadiyo lagu dhaxiibinayo xaajaadka waqtiga ku bixinayna yareeya xaajaadka waa inaan waqtiga yareyno hurdada yaree xilliga cuntada la karinayo yaree dharmaydiga yaree dharmaydiga sidaan u yareynaynaa israafka nolosheena ka ilaalinaynaa dhari karinta sidaan u yareynaynaa israafkaan iska ilaalinaynaa cuntadeenu ha yaraato dharkan ayaanan ku israafine xaaje intaan ubadku u baahan yihiin baa loo iibiyaa mar keliya bas maanta dhaqaalaheennii oo dhan wuxuu ku baxay raashin iyo dhar iyo daawo daawada maxaa keenay ilmuhu inuu mar walba bukoodo waa raashin ka badan aan cunayna ayaa keenay saxaabada xaajadoodu way koobnayd laakiin cibaadadooda ayaa badnayd haween iyo ragba dhammaantood xaajaadkoodu way koobnaayeen laakiin cibaadadooda ayaa qaalib ahayd iyaga marka ilaahay caza wajalla ayaa inoo nicmeeyey oo islaamnimada inagu deeqeen dadkaasaa liibaanaha ku dayanoo dadkaas dad lagu daydo dadkaasaa ugu khayr badan qarnigii koobaad eeg haddaad ku dayan kari weyda qarniga koobaad qarniga labaad kaalay qarniga labaad haddaad haddana ku dayan kari weyda qarniga saddexaad kaalay saddexdaa qarni waa quruun almufadala waa saddexdii qarniya fadliga uu nebigu ku sheegay salafu saalixna waa saddexdaa qarni weeyaan waxa ka dambeeya oo dhan salaf ma aha waa atbaacu salaf baa la odhanayaa dadku hadday muslimiin noqdaan oo dadkaa saddexdaa qarni ay raacaanna waa dadkii salafka raacsanaa baa la odhanayaa ilaahay caza wajalla kuwii raacayna kuwa haynaga dhiga innaga dadkaasaan ku dayanno oo diinteenna islaamka ee ilaahayna siiyey caza wajalla han ku dhaqanno han ku ubadkeenna hanbarno ilmaheenna hanbarno ubadkeenna culamo han ka dhigno walad saddexda ajarkoodu awnasan go'aynin waa waalidka ka tegay walad saalixa iyo caalim cilm lagu intifaaca ka tegey iyo nin khani oo sadaqad jaariye ah ka tegey saddexdaa buu nebigu yidhi camalkoogu ma istaagaya wuu soconayaa waa dhimatay adigii ilmahaagaa kuu soo ducayn camalkaaguu soconayaa cilmi baa ilaahay ku baro ummaddaad cilmigii bartay ardaydaadii baa maaragtaane dad kale cilmiga sii baray halka ajarku iyakana uu soconayaa sadaqad jaariye ah aqal baad meel ka dhistoo tiri aqalkaa waqfi baan uga dhigay madrasadda iyo miskiidka ajarka waa kuu soconaya haweenkuna diintan islaamka qayb weyn baad ka soo qaadateen qaybtiinina hadda ka qaata khadiijatu al-kubra radiyallahu anha qof ugu horeeyay nabi maxamed rumeeyay waa ummul muuminiin khadiija radiyallahu anha qofkii ugu horeeyay diin islaam dhaqaale ku bixiyay waa khadiija radiyallahu anha qofkii ugu horeeyay janno loo bishaareeyay waa khadiija radiyallahu anha qofkii ugu horeeyay diin islaam loo dilay u dhintay waa haweenay sumayya radiyallahu anha bal abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu saxaabada ajiladooda oo dhan baa la yiri sababta ay ku islaameen haween baa lahaa umar haweenay buu sababteeda ku islaamay usmaan ibn affan radiyallahu anhu haweenay buu sababteeda ku islaamay dumarku diintan qayb weyn bay ka soo qaateen qaybtiina inkuna ka qaatay oo culimo soo saara oo xufaad soo saara oo ubad tarbiyadeysan oo diin la aqaladeen ha ka soo baxaan goormay ubadku tarbiyad diineed ka muuqan waa marka aqalka diini ay taalo aqalka diinta ay oolaysan ayaa ka masuula haweenayda iyo ninku labadaba waa ka masuul laakiin maadaama haweenku aqalada u badan yihiin ay fadhiyaan inta badan ilmuhuna inta badan hooyada uu la joogo sida hooyadu ay noqoto ilmuhuna yeela marka dambe marka tarbiyada ubadka diin ku saleeya haday guur tahay haday dhar qaadasho haday tahay haday tacliin tahay haday jaarka la dhaqankiisa tahay haday qaraabada xiriirinteeda tahay waxa soo dhan waxa laga rabaa hooyadu ilmaha aqalka inay ku barto inantaadii baad dhisaysaa oo daadii la guurinayay gaadhay soo egeegaadu ha ku horanaado gabadhaada u soo egeeg ninkaad u dhisayso waliba hooyadu inay wiilka u soo haasawdo weeyaan aabuhuna inta u soo haasawo
ceebna maaha inaad tiraahdo qof wanaagsan haddaad aragto inantaydii way qaan gaadhee haddaad rabto diyaar baan kuulaha inaad tiraahdo ceeb maaha. cumar binu khadaab baa abubakar u bandhigay xafsa, haddana cusmaan buu u bandhigay. labadoodii cusmaan uu ka cudur daartay, abubakarna uu iska aamusay. muddo yar kadib xafsa waxaa soo doonay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. inanta waa inay noqotaa aqalka hooyadeed, inanta waa inay ku sugtaa calafkeeda. haddii ilaahay reerkii caroos uu qadarana, carooska shareecadda islaamka ku saleeya, ka daaya macaasida dumarow, ka daaya macaasida, isdhexyaaca ka daaya. ikhtilaad lama ogolo, rag iyo haween inay isdhex galaan lama ogolo. haweenku iskood ha u farxaan, wax shareecadda waafaqsanna ha ku farxaan, lama diidano. carooska rag iskii ha looga farxiyo, wax shareecadda islaamka waafaqsanna ma aragtaanay ha lagaga farxiyo. geeridii waa la mid, guurkii waa la mid, tarbiyaddii ubadka waa la mid. nolosha oo dhan waxaa la doonaya in lagaga dayda diinta islaamka, laga qaato tacliin iyo tarbiyad. kuwa diinta ku dhaqmana allah inaga dhigo insha allah. jamaacadada dacwaduna way ni yimaadaan, ha laga faa'iidaysto oo mastuuraadka ha lala baxo oo ha lala fadhiisto. haweenku haweenka ha ku dadaalaan, ragguna ragga ha ku dadaalaan. odayaashiinna iyo wiilashiinnana soo saara oo dacwadda u saara, oo ilaahay dartii ha u baxaan. hadday islaaxaan ay hagaagaan raggu, mujtamac oo dhan baa iyakuna ay sababu noqonaya in ilaahay noo hagaajiyo. laanna reerka ragga ka mas-uule, haweenku ka mas-uul maaha. hadduu ninku ba'naado dee haweenayduna way ba'naan. marka hagaaga ragga ayaa muhiima. raggana waxa keliya maanta ay ku islaaxi karaan waa inay mujtamacan ka dhex baxaan, ilaahay dartii u baxaan. kuwa diinta daneeyo ee diinta ku dhaqme ee diinta ku camal falana dee allah inaga yeelo. wixii khayrna soo dhex marana ilaahay baana waafajiyey. waa laynoo ducayn doonaa marka dambe, sheekha aynoo khatimi doona insha allah. curumadii baa inala joogta, anagu arday baan iska nahay. maasha allah, wabilaahi towfiiq. ducada waa isku ducaynaynaa mar walba, mar kastana waa isku ducaynaa ilaahay idinkii. khaasatan hooyooyinku iyaka inay noo duceeyaan mar walba ah. khayr baad nagu tuhmaysaane, sida aad noo malaynaysaan iyo si ka fiican allah inaga dhigo. waa run, ducada laysku ducaynayo way fadli badan tahay. ilaahayna ibarya buu yidhi, baryadiina waan aqbali insha allah. aamiin dhahda insha allah. bismi illah, alxamdu lilah, hanaa lilah, salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sal allah alayh wasalam. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله والله ربي لا أشرك بك شيئا سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب يا من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الإنس والجان جميعهما وانشر رحمتك على العباد. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا وجميع أقاربنا وجميع مشايخنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين صل وسلم على محمد في الآخرين صل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ذنبنا الله داف، ذنبك والدينتنا الله داف، دينت الله ينوم عني، دينت الله ينقود توصي، دينت الله ينقود دلو، diinta allah inala soo saaro. dad badan oo walaalaheena xanuunsan caafimaad sariica allah siiyo. qof walba halkuu ka kurbaysayna kurbada allah ka faydo. dad badan oo hooyooyinkeena oo heeladeenna ayaa majmaca noogu soo duceeyay yiri mid walba muraadkiisa oo macsiin ilaahu gacanta midig ka sii. qof walba halkuu ka kurbaysayna kurbada ilaahu ka qaad. dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba ilaahu noo wada hanuuni, ilaahu na toosi,
أمني إيمانك إله نوزيادي مسلمين تميل جوانا موافقية من دم إله نسي دلنا يرد ويلي قبل بقول حلالة أو فضود إله وسي قول حلالة أو فضود أو دقدق إله وسي إله دين جعل بأنك موقته ودين تيني دين تو الدين تيدي